جالية gobolka Shabeellada Dhexe gaar ahaan midda Jowhar ee Yurub iyo Ameerika deeqda soo baahi weyn loo qabay oo baabuurka dibdimiska hortiina yaallo sidaad ogtihiin baa sanadkii la soo dhaafay dibadu balaaran ayaa ka kacay suuqa shidaalka ee degmada Jowhar dhibaatada lagala kulmana waa ogeedeen dimintiisii oo gacmihiinaad ku diminayseen qof carro ku shubayso iyo qof biyo baaldi ku sidaadeen haddii baabuurkan oo waali lahayna dhibaatadaas dhacday ama antida baabaaday ma baabaadeena waxaan leenahay maadweyne ka gaartaan leenahay jaaliyadda degmada Jowhar xaqiiqdii waxay la xusuusinaysaa reer Jowhar wuxuu ahaa jira abtirsigoodu yaa tahay haddii la yidhaahdo reer Jowhar ay dhihi jireene xaqiiqdii jaaliyadaha dibadaha jiro weli meeshoodii ay joogaan baabuurkan siday ii sheegeen waxay ku gadeen jaaliyadda Jowhar ay ku gadeen qabiil waliba iyagoo leh waxayna tusaysaa inay wiil sidii birisamaadkii waana isugu duuban yihiin maadooyinka ka gaartaan leenahay xaqiiqdii ma ahan kaliya baabuurkaad u jeediin hadday isboortiga tahay garabay siiyaan oo way garab taagan yihiin oo waa dhiirigeliyaan haddii ay tahay waad ogeedeen dhibaatooyinkii dhacay sida fatahaadihii oo maaragtay gobolkan hore uga dhacay qayb weyn ay ka geysteen way u soo gurmadeen hadday tahay dhiirigelinta maamulka 24 saac wayna garab taagan yihiin oo hala dadaalo meeshay wax idin joogaan waa meel lagu farxay hore socday inay ilaahiin جاليدها gobolka Shabeellada Dhexe meel walba ay joogaan gaar ahaan reer Jowhar dadaalkoodii ay mar waliba maaragtay bulshada degmada ay la garab taagnaayeen waxa waliba ay u baahan yihiin waa uga mahad celinaynaa xaqiiqdu ma ahan in wax la istiyo kaliya wax la isaga mahad celiye waxa uu mahad celinta u baahan ka warqabka iyo sida ay ugu xiran yihiin degmada ummadda ku nool baahi kasta iyo xaalad kasta ay ku sugan yihiin siday loo warqabo waa uga mahad celinaynaa jaalida maadweyne ka gaartaan leenahay waxaan rabaa iyagana inaan u mahad celiyo ummadda ku nool gobolka Shabeellada Dhexe dadaalka ay muujiyeen deegaanka haddowna nabadgelyo ahayn haddayna bulshadiisu isku duurnayn hadda cid wax ku jiri karta ma jirto waxaa la rabaa marka dadaalkiina ayay ku yimideen xaqiiqda waxa lagu soo dhiiraday ama leysiri qoftu markaad ugu begto waxay haysato inay dhaqaalaysay si aad ogaataan waxa waxeeda wax loogu daraa waxay irteen ama ay xaqiiqsadeen reer Jowhar inaad dadaasheen ummadana isula jeedaatiin oo qulubteedu midaysan tahay amniga xaqiijisay ee dadaalkiina sii wada in lagu soo dhiirado ee jaaliyadu yimaadeen wada jeedin dadkii 20 sano dalka ka maqnay way hadda waxa garabkayda fadhiyo waxayna ku timid nabadgelyada ka jirto iyo sidaad isugu duubantiin oo u go'aansateen inaad wax qabsatiin ay ku timid dadaalkiina sii wadaya xaqiiqdii haddii aanan dadaali lahayn si wax la idin la qabto aan ku qaaday isqaab sameeyay si la soo qaadan una la xaqiiqdii meel wanaagsan wax la keenay haddii aan wax la qaban lahayn oo nabadgelyada aan ka shaqeyn lahayna hadda qof ku soo dhiiran karta ma jiri lahayn xaqiiqdii wax badan ay qabtay jaaliyaduhu waxa u mahad celin mudan ummadda ku nool gobolka Shabeellada Dhexe gaar ahaan reer Jowhar oo martigeliyay shirkii maamul sameynta labada gobol Shabeellada Dhexe Hiiraan sida bulshada u soo dhaweysayna waxaan leenahay maadweyne ka gaartaan leenahay xaqiiqdu waa dadaasheen